xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascaanood Cabdi Khayr Dirir ayaa kormeer ku kala bixiyay xarumaha kala duwan ee laamaha dawladda sida kastamada maaliyadda dhammaan goobaha cashuuruhu ay ka soo xiroodaan. xogayaha ayaa intuu ku guda jiray kormeerka wuxuu kulamo la qaatay saraakiisha ugu sarreeyay laamahaasi isagoona halkaasi kaga dhageystay warbixino la xiriira qaabka ay u shaqeynayaan. xogayaha ayaa ka hadlay ujeedada kormeerkiisa isagoona sheegay inay tahay sida ay u dardargelin lahaayeen hawlaha ay u hayaan bulshada. ku jirnaa hawl maalmeedkayga caadiga ah aan ku mari jirnay hawlaha dhaqan ururinta ee degmada. halkan aan joognaa waa qayb kamid ah qaybaha dakhliga lagu ururiyo waa kastamkii Laascaanood ay dakhliga ku qabtaan wasaaradda maaliyadda iyo dawladda hoose. waxaan soo booqanay inaan dhayno ilaalino dakhliga soo soconayo haddii ay ku shaqada soo socoto si fiican bay shaqada loogu socotaa wax dhibaato caqabado ka jirta ma jirto. shaqadu way wacan tahay waxay la fadhiyaasna sarkaal kamid ah saraakiisha kastamka laanta turmataariyada kulleysna kelmadiisu odhan doonaa. waxaan ka codsanaa dhammaan shacabka magaalada degan iyo kuwa aan degan soo mara meesha inay si fiican oo sharaf ku jirto oo aan dhibaato ku jirin cashuurta ku waajibtay ee lagu weydiinayo kastamka inay u bixiyaan oo dhan gaar ahaan waxaan ugu yimid xarunta kastamka guud halkaas oo cashuuraha guud oo lagu qabto cashuurta dawladda dhexe iyo degmadaba. kormeerkaas anagu aad baan ugu soo dhaweynay xogayaha degmada waayo dakhli ilaaliyaanu nahay. dakhliga dawladda dhexe iyo ka dawladda hooseba inaanu ilaalino baanu goobta u joognaa oo ururino oo hareeraha ka taagnaano dhammaantayo. halkan anagu ciidanka ilaalinta cashuuraha haddaanu nahay taliyihii cusbaana waa noo yimi waana soo gaadhay iyo shaqadiisii wuu bilowday dhammaan gobolka oo dhan hadday airport tahay hadday cashuuraha beriga tahay hadday xarunta kastamka tahayba. dakhliguna si wanaagsan ayuu u socdaa oo shacabka halkaan taaganahay waa goob kamid ah goobaha dakhliga lagu qabto sida ay u muuqata waa controlkii waqooyi ee magaalada Laascaanood. waxay rugu tahay dawladda hoose degmada Laascaanood waxaa ka howlgala shaqaalaha dawladda hoose Laascaanood iyo rug boolis oo ciidanka booliska ee gobolka ah. waxay ku qabtaan cashuuraadka ku waajibay gaadiidka soo maraya dawladda hoose hadday badeecad tahay iyo hadday xoolo tahayba. waxay kaloo ku qabtaan wax kasta amniga degmada wax yeelaya. marka sida aad la socotaan waa kormeerkeenii dheerilaha ee aanu ku mari jirnay ilaha dakhliga si loo ogaado ama loo xaqiijiyo himilooyinkii madaxweynaha ee ah in la ilaaliyo dakhliga dawladda la ilaaliyo si toosan ugu socdo si bulshada gobolka xalay degmada wax loogu qabto. qaba dawladda hoose aan halka ka hayno boqolkiiba boqol way fiican tahay amniguna wuu wanaagsan yahay. waxaanu qabanaa lacagta dakhliga dawladda hoose si wanaagsan ayaa dadweynuhu u bixiyaa. xoolaha iyo dejinta iyo si wanaagsan baa noo siiya. kandhaylilaha si afka iyagana si wacan baa noo siiya. sidaa awgeed si wanaagsan boqolkiiba boqol ah bay u socotaa hawsha cashuurta noo siiya. dadweynaha uga qaadna wax dhibaato ah nagu soo wajamayna ma jirno. xarun boolis wey boolis baa naga shaqeeya. booliskaasa wixii boorbaleyna naga caawiya iyadaan wax saas boorbalin ba uusan dadweynuhu nagu keenin. maxamuud aadan askar maxamuud guray Somali News TV magaalada Laascaanood.